iyadoo sanad kasta maanta oo kale 12 August lagu xuso guud ahaan wadamada caalamka maalinta dhalinyarada adduunka ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish waxa uu hambalyo arintaasi ku aadan u diray dhalinyarada caalamka gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ugu hambaliyay maalinta dhalinyarada adduunka ee 12 August waa lafdhabarta bulshada waa kuwa dawladnimada u keenay Soomaaliya la dagaalamay gumaysigii ilaa haddana u dhinta dhaxanta u taagan qorraxda u taagan difaaca dalka hooyo ciidda hooyo dhalinyaradu waxa ay ku jiraan kaalmo aan la ilaabi karin oo muhiim ah haday ahaan lahayd difaaca dalka haday ahaan lahayd ka shaqaynta nabadgelyada gudaha ee dalka Soomaaliya iyo haday ahaan lahayd xagga tacliinta sidoo kale dhalinyaradu waxay door muuqda ka qaataan xagga siyaasadda iyo arrimaha sportiga sida aad ku warqabtiin dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay siisay kaalin lama ilaawaan ah dhalinyarada Soomaaliyeed meel walbo ay ka joogaan dalka si sanadle ah ayaa halkan dawladda federaalku ay ku martaqaadaa magaalada caasimadda si ay usu dhaafsadaan way aragnimadooda iyo aqoontooda isla markaas waxay sameeyaan shabakad weyn oo yani xiriir ah oo isbarasho isla markaas waxay soo bandhigaan waxqabadkooda iyo xirfadahooda kala duwan gobol walba dhalinyarada joogta ay soo bandhigaan taas waxa suura geliya dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo xukuumadda federaalkaba oo ay horkacayso wasiirka sportiga iyo dhalinyarada Khadija Maxamed Deriye runtii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo halkan kaalinta lama ilaawaanka ah ee madaxweynaha iyo wasiirka sportiguba ay ka qaateen xiriirinta iyo isu keenista iyo tayadhiska dhalinyarada Soomaaliyeed runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku jiraan kaalin muuqata ay uga jiraan door kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay maanta oo ay tahay 12 bishii 8 sanadkan 2020 waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo gabagabayno shirkii wasiirada maaliyadda federal government-ka iyo dawladda xubnaha ka federal government-ka iyo banaadir waxaan aad ugu faraxsanahay markaas shirkan oo bil walba aan qabano inuu si fiican loogu qabsoomo maanta halkan Muqdisho waxyaalo fara badan oo masiiriga wadankana oo maaliyadda masiiriga wadankana baan ka wada hadalay waxaan ka wada hadalay wixii kabka ahaa ee nooga yimid adduunka habkii loo maareyn lahaa loo qaybsan lahaa si fiican baan ugu heshiinay geedi socodka dhaqaalaha arrimaha muhiimka ah iyagana aad baan uga wada hadalay shir dambe ee bisha soo socotay inaan qabsano September 13 ayaan ku soo gabagabaynay aad waxaan ugu faraxsanahay runtii iyadoo wadankeena federaalku ku cusub yahay haddaanu nahay wasaaradda maaliyadda inaanu bil walba joogteynay inaanu isku nimaadno ugu dambeyntan aan wax meel isla dhigno aan ku wada qanacsanahay inaanu meel isla dhigno saaxiibaday wasiirada iyo wasiirka maaliyadda muxuu ahaa inaan gudoomiye ku xigeenka maaliyadda qaabilsanaya banaadir aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxa kale oo mahad celinayaa dhalinyarta rag iyo dumar bale halkan joogtay farsamo yaqaanka ka soo shaqeeyay arrintan nooga sii horeeyay ee si la faguray arrinta si diyaariya iyo presentationskii quruxda badnaa halkan ka soo jeediyeen xil weyn baa iyagana saaran oo inay mar walba sii diyaariyaan intaasaan ku soo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliyeedna waa salaameynaa afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani Barkhad Jaamac Batuun oo maanta ka qayb galay madal lagu xusaayay dhalinyarada oo ka qabsoontay magaalada Hargeysa ayaa xisbiga kulmiye ku dhaliilay muddo 18 sano oo xisbigu jiray aan talada iyo xilalka salsare ee xisbiga marna fursad loo siinin dhalinyarada
waxaana uu xisbiga kulmiye ugu baaqay in shirweynaha afraad ee la filayo in bisha 10aad ee sanadkani uu xisbigu ku qabsado magaalada Hargeysa in lagu soo doorto dhalinyaro isbedel ku sameeysa xisbiga waa sida uu afayay ku hadalka u dhigay qoladeeda kulmiye la kaftamay 18 sano kulmiye xisbiga afartii oday aasaasiba wali hortaag way jiraan dad fara badan oo sharaf leh oo qaranka wuxuu qaban karaya oo awood leh oo agaasimaha bulshada bartan fadhiya agaasimaha dhalinyarada nimanka dhalinyarada bartan jooga Cabdixakiin Bustaale oo xukuumadda ka tirsan laakiin talada lama gelin oo arinka ma jiraan waa adeegayaan iyagu waxaanu jecelnahay odayaashu inay iska nastaan oo bulshirweynaha kulmiye soo socda dhalinyaro lubcaan ku wada ciyaarna garoonka ay keenaan ilaa odayaalu ismeeriyan kareen marka waxaan isleeyahay hilaadinta hogaamineeda xisbiyadana waxaad ka sawiran karaysaa froodka dadka u jooga marka diibaan baan ka tagoysnaa dhalinyarada kulmiyaa oo xukuumadana gudoomiye ku xigeen hay'adda maamul wanaagga ka kadib markii 2 maalin ka hor gudaha xabsiga dhexe ee Xamar oo ah goob ammaankiisa si weyn loo ilaaliyay gudihiisa dagaal uu ku dhex maray maxaabiis ku xiran iyo sidoo kale qaar ka tirsan ilaalada xabsiga ayaa wixii intaasi ka dambeeyay waxa ay soo tiriyay wararka kala duwan ee laga helayo si ayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guulad Qadar oo dhawaan magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood oo loogu talagalay inay baadhis adag ku sameeyaan qaabka ay maxaabiis ugu suura gashay helitaanka hub ay kaga dhex dagaalamaan goobta ay ku xiran yihiin ayaa waxa uu maanta magaalada Muqdisho kulankii ugu horeeyay kula qaatay guddida lagu magacaabay inay baadhis dhameystiran ku sameeyaan shaqaqadii maalin dhaweyd ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho guddidan oo ka kooban 6 xubnood ay ku jiraan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dhex maray waxa ayna dhinacyada kala duwan isweydaarsadeen aragtiyo badan oo ku saabsan falanqaynta qaabka ay wax uga dhaceen xabsiga dhexe maanta waxa kulan yeeshay guddigii ra'iisul wasaar ku xigeenka ahna siihayaha xilka ra'iisul wasaaraha shirgudoominayay guddiga waxa ka soo qayb galay guddiga dhan waxa looga hadlay sidii loo sameyn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaankii iyo habkii loo sameyn lahaa waxaan magacaabnay guddi farsamo oo arintan ka shaqeyn doono waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratibmi lahaa faldambiyeed ahaata iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan waxaan lagu ballamay 10 bere oo ku qorneed dekreetadii ra'iisul wasaaraha gudahooda in baaritaan hufan guddiga keenaan guddigana shaqadiisa waa bilowday waa berigii hore ee saakayto al-shabaab ayaa weerar xoogan waxay ku qaadeen deegaanka Shabeelow oo hoostaga magaalada Bacaadweyne ee gobolka Mudug dagaalka ayaa u dhaxeeyay xubno ka tirsan al-shabaab iyo dadka deegaanka inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay ku dhawaad 10 qof oo dhinacyadii dagaalamay waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 5 qof oo shacab ah kuwa oo rasaasta ay ugu tagtay guryahooda al-shabaab ayaa la sheegay in deegaanka ay weerarka ku qaadeen ay gacanta ku dhigeen muddo saacada ah balse markii dambe waxaa ku baxay oo deegaanka gaaray ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad sidaasna waxaa meesha looga saaray xubnihii al-shabaabka ee weerarka ku qabsaday deegaanka Shabeelow gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad ayaa ka hadlay dagaalkan isagoona tacsi u diray ehelada dadkii ku waxyeeloobay dagaalka al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaankaasi gudoomiyaha ayaa caafimaad u rajeeyay intii ku dhaawacantay dhinaca kale Mahad Cabdalle Cawad ayaa ugu baaqay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug in jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan shacabka lagu xasuuqay deegaanka Shabeelow si looga xureeyo xubnihii weerar ku soo qaaday oo la aaminsan yahay in deegaankaasi aysan ka fogeen oo duleedka ay ka joogaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya fadhigooda maanta waxay uga hadlayaan warbixinta guddiga dastuurka iyo akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka qareennada Soomaaliyeed xalay fiid hore ayaa xildhibaanada waxaa lagu wargeliyay inay soo xaadiraan kulanka maanta lagu wada inay yeeshaan waxaana loo sheegay in waqti hore ay tagaan xarunta golaha maadaama muddo xileedka u harsan iyo howlaha ku xusan kala fadhigooda 7 ay kala badan yihiin
guddiga dastuurka ee maanta warbixinta laga dhageysanayo ayaa ah guddi muhiim ah oo lagu hagi doono doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. guddoonka iyo guddiga joogtada golaha shacabka ayaa maalin ka hor fadhi ay ku yeesheen Muqdisho waxay aad uga hadleen sidii loo dadajin lahaa ajandayaasha horyaalla, kordhinta waqtiyada ay kulmaan oo ah maalmaha Sabtida, Isniinta iyo Arbacada, halka Khamiistana ay kulmaan guddiyada joogtada. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa horay u sheegay in shaqooyinka horyaalla ay ugu muhiimsan yihiin dib u eegista dastuurka iyo qodobo kale oo muhiim u ah dalka. hadalhaynta siyaasadeed ayaa ah xilligan in aqalka hoose uu hormuud u yahay waqti kororsi loo sameeyo madaxtooyada Soomaaliya iyadoo laga duulayo dalabkii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee ahaa in la siiyo bilo dheeraad ah oo ku eg Agoosto 2021 si ay u hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah. maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa si wada jir ah u bilaabay in ay dayactir iyo dhismo ballaaran ay ku sameeyaan qaar ka mid ah wadooyinka dhexmara gudaha suuqa Bakaaraha iyada oo laga hirgelinayo dhagxaanta interlooga ah. wadada iminka laga bilaabay hirgelinta dhagxaanta interlooga ayaa waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gudaha suuqa Bakaaraha. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan hareeraha wadada laamiga ee iminka laga hirgelinayo dhagxaanta interlooga oo la hadlay warbaahinta ayaa uga sheekeeyay dhibaatooyinkii ay ku qabeen isticmaalka wadadaasi marka la gaaro xilli roobaadka. aad iyo aad isbedel weyn ayaa ka muuqdo. markii hore waxay ahayd horta wadadan oo aan sameynay dhiiqa ma aanan ka mari karin. hadeertaan hadda wadadaana sidii oo kale noo noqonaysa oo dhiiqay ahaan jirtay gurigaanan deganahay markaan ka soo degno baaldi biyo aan qaadan jirno lugaan iska dhaqi jirnay wada dhiiqay ahaan jirtay. hadeertaan farxad weyn ay noo tahay tani. anigoo ah maamooyinka xaafadan degan isgoyska Bakaaraha suuq Bakaaraha dhiciisa carwo limon agteeda waxaan halkaan nolo wada jidka interlooga nolo saaray iyadoo markii hore xaafadan dhibaato weyn baan ku qabnay baabuurta aan mari karin gaadiidka dhibaato ku ah dadka dhibaato ku waayeelada ku fijiray qaar la si gudoomiyaha degmada ayaa wuxuu nagu guwaabshay in jidkaan dhisano jidku waa inay dhisatiin quruxsatiin oo neerin amarkaas uu nasiye hadda markii dadka xaafadda markaan ka wada tashanay oo isla hadalnay quruxda xaafadan aan fiirnay jidka sidaas aan ku dhisanay. gudoomiyaha maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir Mustafa Cali Khayre oo si rasmi ah u dhagax dhigay wadadaasi ayaa ka waramay muhiimadda ay maamulka degmada iyo dadka deegaanka ay u leedahay hirgelinta wadooyinka noocan oo kala ah ee gudaha suuqa Bakaaraha iyaga oo interlooga la saarayo. waxaan dhagax dhignay oo dhagax interlooga wado in muddo ah burbursaneed oo wasaq iyo dhiiqo iyo qashin dadka deegaanka ama ku ganacsada meeshaas ama degan aan ku amarnay in ay maxaa la yiraahdaa wadadaasi aan rabno sidii aan rabno inaan mataqaana ay sheegay loo qabtay oo interloogi la dhigay oo hadda ay ku soo laabatay bilicdii iyo sidii la rabay. waa duulimaadkii shanaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda ay gacan weyn ka geysatay in dib lagu celiyo dalkii hooyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo muddo dhowr bilood dalkan Uganda ku xanibnaa saameynta cudurka halista badan ee COVID-19 dartii. tirada dadka maanta ka dhoofay garoonka caalamiga Entebbe oo gaarayay 152 qof ayaa waxay iskugu jireen arday wax ka baranaysay jaamacadaha kala duwan ee dalkan Uganda, dad deegaan ku ahaa Uganda iyo weliba dad iyagoo safar ahaa duulimaadyada caalamka ka xirmeen. qaar ka mid ah muwaadiniintii maanta ka dhoofay garoonka caalamiga Entebbe oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin maanta inay dib ugu laabtaan dalkii hooyo iyagoona u mahadceliyey safaaradda. alxamdulilah saaki waxaan u laabanaynaa dalkeeni runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka soo shaqaysay laabashadii markaasi iyo maaragtay COVID-19 gaabkii nagu galay dalkan Uganda. waxaan leenahay waa mahadsantihiin sidoo kale dowladda Soomaaliya u mahadcelinayna iyo safaaradda Soomaaliya oo ka shaqaysay arrinkan laabashada ah. marka alxamdulilah waxaan ahayn arday ka tirsaneed ardaydii master degree ka diyaarinaysay dalkan Uganda.